السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا استوديوها سومالي تي في كويا لا مقالة مينيابوليس قبل كمينيسودا dalka Mareykanka. وانيغو عبد الرشاق شيخ مرسل waxaana ila jooga Asad Xirsi Cabdullaahi oo sarkaal matalaya urur cusub oo hadda la aasaasay oo lagu magac daro Somali People Liberation Front ama urur dhaqaaqa xurriyad u raadinta Soomaalida dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ka tirsan. daawadayaal si aad la socotaanba dalka Ethiopia waxa ka dhacay isbeddello aad u waaweyn labadii sano ama dhowrkii sano hadda ugu dambeysay. waxaa qadka ka baxay gabi ahaanba maamulkii hore ee EPRDF oo muddo ka soo talinayay gobolka ama wadanka Ethiopia guud ahaantiisaba oo ay hogaaminayeen ururka TPLF. waxaana bedelay urur cusub ama nidaam cusub oo uu kamid oo hoggaan u yahay Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia hadda kadibna aasaasay xisbiga la dhaho PP ama ururka ama xisbiga barwaaqo sooranka. haddaba waxaana la fadhiyaa nin xogogaal oo arrimaha soo idil kana soo jeeda deegaanka Ethiopia muddo soo joogay lagayna yaabo inuu waxyaabo badan ka soo qabtay. haddaba wuxuu u qaabilsan yahay arrimaha dibadda ee ururkan hadda dhow la aasaasay ee Somali People Liberation Front. Asad marka hore kusoo dhow barnaamijka. Thank you Cabdirasaaq. waan dhowahay walaale saad sheegtay aniga magacaygu waa Asad Xirsi Cabdullaahi mas'uul ku matalaya ururka SPLF dibadda. waan dhowahay waad mahadsantahay. Okay, aad baad u mahadsantahay. daawadayaal inta uu barnaamijka socdo waxaynu idin furaynaa khadka telefoonka oo aad su'aalihiina nagu soo weydiin kartaan ama commentiga aad ku bixin kartaan. haddii aad su'aal u qabtaan mas'uulka nala jooga aad si toos ah u soo weydiin kartaan idinkoo cidina dhexdiina ku jirin. telefoonka shaashada idinku qoran aad naga soo wici kartaan. sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barta aan Facebook ku leenahay ee Som TV Minnesota. kommentiyada waxaad noo soo dhigtaan halka ayaynu ka akhrineynaa ama su'aalaha idilba. haddaba daawasho wacan barnaamijka. Asad marka ugu horeysa ururkan cusub ee hadda la aasaasay Somali People Liberation Front ayaa waxaad u qaabilsan tahay arrimaha dibadda. marka su'aasha cid walba isweydiinayso waxay tahay ururkan waa urur hadda la aasaasay oo cusub. maxaa idinku dhaliyay ururkan inaad aasaastaan? hageesa lagu aasaasay? waad mahadsantahay walaale. ururkan waxaa lagu aasaasay dalka gudihiisa dalka Ethiopia gudihiisa gaar ahaan deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. ururkan waa urur cusub waana urur aan hadda aasaasnay oo aan dhamaystiray dhammaan waxyihiisii iyo qaybihiisii ilaa heer degmo heer deegaan heer dowladeed oo dhan walba aan u dhamaystiray. ururka waxaa lagu aasaasay saan kuu sheegayba deegaanka waana urur cusub oo aanu hadda aasaasnay. Okay, maxaad u aasaasteen ururka? waxaan in yar baan rabaa inaan briefkaasi cabdow intaanan exactly ku sheegin sababtaan ururkan u aasaasnay. dalka Ethiopia waa dal qoomiyado fara badan ay degan yihiin. waa dal dadkooda leeyahay. waa dal ku dhisan federal system. federaalkani wuxuu isu keenayaa dhammaan shucuubaha iyo qoomiyadaha kala gedisan ee dalku leeyahay. deegaanka Soomaalida ama ummadda Soomaaliyeedna dadkaas ayay ka mid tahay. dalku wuxuu ahaa nidaam federal system ah oo ethnic federalism system ah. nidaamkaas ay ummaddu ku wada dhaqnayd oo lagu wada joogay. waxaynu ognahay intii isbeddel ku dhacay ee waa Abiy yimid wuxuu burburiyey oo uu meesha ka saaray oo awood military uu ku qabtay ku weeraray oo ku dumiyey nidaamkii ka jiray dalka guud ahaan. burburintaasi waxaa ugu horeeyay oo markii koobaad uu ka bilowday deegaanka Soomaalida oo awood military uu ku burburiyey nidaamkii federalismka ahaa iyo systemkii ka jiray. dowladdii iyo xukuumaddii deegaanka joogtay ee sharciga ahaydna uu si sharci darro ah uu kaga saaray meeshii kuna keenay nidaam aan waafaqsanayn sharciga oo aan dastuurka waafaqsanayn oo uu keenay nidaam aan ahayn dad la soo doortay ama parliamentary system aan ahayn. taas waxa uu ku xijiyey oo markuu ka gudbay deegaanka Soomaalida wuxuu ku xijiyey deegaanka shucuubaha sida Walaytada iyo Cafarta. Benishaangulka ku xigay Gambeelaha ku xigay. intaas markuu soo burburiyey wuxuu burburiyey oo iyadana sidii si la mid ah uu burburiyey deegaankii Oromada iyo nidaamkii isagana meesha ka jiray. madaxdii iyo aqoon-yahanadii isaga xisbi markuu burburiyey deegaankii Oromada laftirkeeda wuxuu
markiiba haddana target gareeyey oo uu burburiyey ururkiisii uu isagu ka midka ahaa ee oromada ahaa ee keenay isaga raggii kursiga kusoo fadhiisiyey meesha sida aynu ognahayba wuxuu meeshii ka saaray nidaamkii raggii madaxda meesha keenay sida Lamo Magarso oo kale Jawhar Maxamed oo kale Hamza oo kale Baqala oo kale arintaas intaas markuu sameeyay ayuu kadib wuxuu u gudbay deegaanka Tigreega dagaalku saas ku dhac nidaamka marka systemka intaas oo dhan isa soo daba socday ee waxa soo maxaynay markii ay meeshii ka baxeen ee nidaamkii uu ka saaray meeshii ay awoodii ay noqotay wax one man rule ah oo dictatorship ah taas anaga marka waxayna dhaxal siisay inaanu wax iska weydiino aayaha dalka iyo deegaanka inaanu okay wixii aanu ka qaban karno deegaanka inaanu ka qaban okay madamist hawanimi okay marka hadda abiy waxaad ku eedeynaysan eedeymo waaweyn oo culus oo dusha laga saaray oo idinku kaleftay inaad xisbigan aastaan eedeymaha waxaa ka mid ah in nidaamkii hore u jiray uu bedelay oo nidaam cusub oo asaga keligiis uu ka talinay uu ku bedelay soo nidaamkii asaga ka horreeyay xataa keligii talis ma ahayn runtii lama dhihi karo nidaamkii asaga ka horreeyay keligii talis buu ahaa sababta aan loo dhihi karin wuxuu ahaa nidaam federaal ah oo qowmiyaduhu ay leeyihiin maamulkooda oo ay leeyihiin baarlamaan oo ay leeyihiin habraac federalism ah oo dimuqraadi ah oo federal sharciga heer federaali uu u qeexayo xuquuqda ay deegaanku leeyahay oo uu deegaan walba uu ku dhisnaa ilaa heer madaxweyne ilaa heer hoose ilaa heer deegaan nidaamku saas uu ku wada socday marka ninkan ideaha hadda meesha la isku hayo waxaa weeye federal system oo dimuqraadi ah oo ideology ah oo dadku ay wada leeyihiin iyo one man role oo dictatorship labadaasaa hadda macnaha waxa meesha la isku hayaa ay tahay okay Ethiopia sidaan ognahay dimuqraadiyad xor iyo xalaal oo dadku cid ay dooranayaan taariikhda kama dhicin marka dimuqraadiyadii hore ee jirtay iyo tan hadda la leeyahay si ku kala duwan yihiin baa macnaha bal nafahansi aniga daawadayaasha wad mahadsan tahay waa pointiga waa su'aasha ugu muhiimsan runtii ee la rabo dadku inay si toos ah u wada fahmaan waxaa jira tusaale haddaan u soo qaadano nidaamkii hore EPRDF ay hogaaminaysay waxna waa lagu wada socday waxna waa lagu kala socday waxa lagu wada socday wuxuu ahaa sharci la wada leeyahay oo federal system ah oo qowmiyad wadaaga nidaamkaasi waa federaalka ay dawladda federaalka iyo dastuurku uu qeexayo qowmiyad waliba in ay xuquuqdooda ay leedahay deegaankeeda ay leedahay xitaa heer waqtiga ay gaadho inay go'i karto iyadoo waafaqsan sharciga inay go'i karto nidaamka hadda uu abiya wato waa nidaam dictatorship ah oo one man role oo central government ah oo laga saarayo dhammaan shucuubahaas xuquuqda ay lahaayeen ee federaalka u ogolaanaya nidaam lagaga saarayo keligii talisnimo weeyaan marka laba arrimood oo xitaa isku soo dhow oo la isku soo dhaweyn karo ma aha waa laba hawlood laba arrimood aad u kala fog nidaam federalism ah oo ethic federalism ah oo la wada leeyahay oo la wada wadaagayo oo ku xidhan federaalka ku xidhan sharciga federaalka ee guud ee dalka iyo kii deegaanka oo la iswaafajinayo isku xidhan oo nidaam dawladeed sida hadda inaga Mareykanka aynu ku noolahay oo kale ah state-keena Minnesota waa state ka mid ah United States of America federaalka guud sharciga federaalka iyo kan Minnesota dawladda reer Minnesota waa nidaam isku xidhan oo federaal hadii la damco marka in meesha laga saaro hadii wax la wada yeelanayo ma jiraan marka waa nidaam keligii talis ah iyo nidaam dadku wada leeyahay oo dimuqraadi ah oo federal system oo la wada wadaago weey marka wax isu dhowba ma wax la isku soo qaban karo ma okay marka adigu kulay hadda ururkaada ama aad matalayso waxa la Somali People Liberation Front marka la fiiriyo dawlad deegaanka xilligii maamulkii hore dagaal iyo qax iyo dhimasho iyo barakicin badan baa ka jirtay oo maaragtay halgan hubaysan baa ka jiray dawladana uma jiri jirin oo nidaamka hadda uu hogaamin jiray hogaamiye hore deegaanka Cabdilay ama Cabdi Maxamed Umar marka haddana nabadgelyo baahsan baa marka ay waxay dad qaar waxay aaminsan yihiin in hadda nabadgelyo badan heleen oo si xor ah u hadli karaan waxay doonaan ay sheegi karaan marka xagga wax iska qaban laayeen xagga wax ka aragteen waxa weeyaan horta waa runta halgan dheer oo waqti dheer soo socday oo gobonimo doon ah oo lagu raadinayo xorriyadda dadka Soomaalida ee deegaanka degan oo
ururo badan ay soo maray oo ay ugu muhiimsanaa ururka ONLF ayaa lagu soo jiray waqti dheer halgankaasi halgan hubaysan oo xabadu socoto oo dhacaya halgankii wuxuu dhalay iyo mid dhalkiisii waa la helay wanaagiisii iyo xumaatadiisii labadaba waa la helay nolol iyo geeri intaba waa la helay haddii marka ay xabadu socotay oo nabadgelyo la'aani jirtay maanta ma jirto xabad socota oo wadankii hadda maanta urur hubaysan oo magaciisi dadkii lagu leynayo oo dadkii shacabka loo dhibaateynayaa maanta ma jirto ururkii waji kale u qaatay laakiin nabadgelyo deegaankii kama jirto runtii markii hore ee nidaamkii hore jiray nabadgelyaa ka jirtay deegaanka dadka shacabka ah iyo dadka deegaanka wada degan ma jirin dagaal qabiilaysan ma jirin qoomiyad qoys dad isu leynayo jifo dagaal ah ma uusan jirin maanta laakiin waxaynu ognahay wadanka guud ahaan haddaad ka bilowdo mooyaale ilaa garbaciise dhiigu u daadanaya colaadii iyo dilkii iyo dhibkii isagoo kii hore ka xun ayuu maanta jira dadkii qoys bay isu leynayaan soomaalinima loo leynayaa waxaynu ognahay mooyaale ilaa borderka soomaalida iyo oromada ilaa maanta waxaa ka socda canfar iyo soomaalida waynu ognahay dhibaatada xabadu ma istaagin dhimashaduna ma istaagin xoriyatu qowlka maanta aad hadda sheegayso dadku siday doonaan ba u hadli karaan markii hore ee uu dagaalku socdayba waanu hadli jirnay maanan aamusi jirin dhibaatadana waanu sheegi jirnay waa la qori jiray markhaati baana nooga tiina halganku isagoo af iyo adin ah labadaba wuu socday maanta marka isaga oo dadban oo ka xun kii hore oo ka dhib badan ayuu jiraa marka nabadgelyo ma taalo weliba marka iyada dadku dhibka ay doonaan ha qabaan laakiin nolol bay haysteen deegaanka ku sugan maanta nolol ma jirto deegaankii nolol kama jirto baahi baa ka jirta waxaa ka jira sixir barar baa ka jira waxaa ka jira nabadgelyo la'aan oo deegaankii oo aan xuduudba lahayn waxaynu ognahay dhulkii macnaha wadankii borderka lahaa maanta border ma laha macnaha dhibaatadii hore dhibaato ka badan oo 10 jeer ka badan oo laban laabkeed ah ayaa ka jirta marka ma dhihi karna nabadgelyo jirta waxaa jira dhibaato ka xuntii hore ayaa maanta deegaankii ka taagan oo dhinac walba ah ama dhaqaalaha ahaato ama ha ahaato noloshii basic ah ee dadku ku xidhnaa ama biyaha ahaato macnaha dhibaatada dadka markii hore haysatay iyo maanta haysata waxaa ka xun midda maanta haysata okay waxaan ognahay dhibaatadii hore inay dawlad iyo shacab ama dawladda iyo halganka u dhaxaysay dad badan oo shacabna ay ama xagga taageeraan xagga taageeraan ay ku dhaxgali jireen hadda ma dad baa qabaa'ilada isla dagaal hayo sida dhaqanka Soomaalida caadada ah biya mise xukuumadii baa dagaal wada oo dadkii baabi'inaysan xirxiraysan walaal horta dawladnimadu waxa weeye deegaanka iyo dadka shacabku inay nabad haystaan inay nolol haystaan inay dhaqaale haystaan markii intaas hirgashay dawladii jirtaa hadda waxa deegaanka ka jira square deegaanka oo dhan borderkiisa haddaad fiiriso colaad sokeeya ka jirta qabiiladii oo isleenahay ka jira waxaa ka jira dawladda laftirkeedii oo gaar ahaan tan deegaanka laftirkeeda oo iyadoo dhibaatada ugu baahsanba wado si individual ama target ama in ay iyadu u wado macnaha qaab kale oo dhibaateyn gooni ah oo ay waliba si khaas ah dad gaar ah iyo qoysas gaar ah iyadu taa ay ugu hayso marka hadda topic-aygu hadda ma ahayn inaan dib aan uga sii hadlo arrintaas waxa weeye waxaa jira su'aashaada haddaan usoo noqdo nabadgelyo la'aan baahsan baa deegaanka ka jirta nolol la'aan baahsan baa deegaanka ka jirta dhaqaale la'aan baahsan baa deegaanka ka jirta dhib ka badan dhibkii hore ayaa ka jira deegaanka oo runtii maanta wax loo dul qaadan kara ama lagu sii jiri kara aan ahayn waa tahay waxaan u noqonaynaa marka nidaamkii aad ka dhawaajisay oo ethnic federalism ama federaal ku salaysan isirka dadka ay markaa ka soo jeedaan isku deegaan aba inay macnaha samaystaan iyo midka hadda abiyay iyo macnaha ururka BB ay soo macnaha gudbiyeen oo ah geographical macnaha federalism oo deegaan ahaan ay fiiran ay qabiil ayna fiirinayna ama isir ayna eegaynin marka idinku mid ka taageersanteen anaga fikirkanagu waa cad yahay waxaan ugu kalifay xilligan inaanu anagu samayno urur dagaalama inaanu samayno urur u soo istaaga xuquuq dad bini aadan u leeyahay ummad Soomaaliyeed leedahay waxa weeye markaanu aragnay dhibaatada ka jirta ee deegaanka waxaan marnaba la qaadan karin adduunka maanta aynu joogno ee xilligan maraya nidaam dictatorship oo fascist oo kaliya talisa wax la qaadan karo ma marka anagu waxaanu taageersanahay nidaamka ethic federalism ka Ethiopia la wada leeyahay
Ethiopia dastuurku ka shaqeynayo Ethiopia ku wada joogta wax wada lahaansho iyo sharci xadeeya qof walba xuquuqdiisa waxaanu taageersanahay nidaamka federaalka okay ururkiinu ma urur silmi oo si nabadgelyo xuquuq raadinaya mise waa urur oo maaragtay hubaysan ururkana waa urur hubaysan haddii aan nabadgelyo wax lagu helayo oo aanu nabadgelyo wax ku helayno waxani ma dhicin haddii waxa la wada leeyahay wax dadka ka dhaxeeya oo masiirkiisa iyo taladiisa waxa ummadda dhex yaala u yahay ma dhacdin deegaanka inta lagu soo duulay in la dumiyo military lagu qabsado ma dhicin dalkii dhanaa ee Ethiopia dhammaan dawlad deegaanadiisii in la burburiyo waynu gaari doonaa insha Allah meelaha ugu muhiimsan hadduu Ilaahay yiraahdo haddii uu jiro marka nidaam nabadgelyo ma aanan haynin annaga waxaan ugu kalifay inaanu hubkaad qaadanaysaa Ethiopia oo la diriraysaa waan qaadanay hubka Ethiopia la dirirayna Ethiopia la midnahay waxa weeye inaanu dhaafino shacabka deegaanka iyo shacab weynaha guud ee Ethiopia ba in aanu ka qaadno nidaamkan fashistiga ee kaligitaliska ee Abiy Ahmed inaanu meesha dhaafino kaasa anaga naga go'an marka talaabadan inaad macnaha si hubaysan aad gobonnimo ama xorriyad ku raadisaan ma ka fiirsateen iyadoo inu ognahay ururkii dhowr iyo 30 sano soo dagaalamayay kuwii ka sii horeeyay WSLF dhammaan ay soo wada xaroodeen oo taageero dibadda ay waayeen darteed halgankii hubaysnaana uu saa ku fashilmay oo dhammaantood hadda nabadgelyo ay doorbideen idinku ma ka fiirsateen aad ma uga fiirsateen xaggeesa taageerada ka helaysaan si qoto dheer baanu niyo arrintaa uga fiirsanay waanu qiimeynay macnaha dhibaatooyinkiisa iyo wixii uu keeni karo runtiina wuxuu haddii ayna kollaba ku horeynin de waxaad uga sii aad waqtigiisa uga sii dheeraysaa ama aad uga sii carartaa ma jiro si qoto dheer baanu uga fiirsanay taageerada waxaanu haysanaa taageerada shacabka deegaanka oo runtii aanu ku kasbanay oo aanu ku helay dhibaatada iyaga ay ku hayso nidaamka loo keenay korka looga keenay ee bilaa sharciga ah ee aan kay doorteen ahayn ku ay rabaan aan ahayn mid wax laga weydiiyay aan ahayn burburka iyaga soo gaadhay iyo meeshii joogeen iyo meesha ay ku noqdeen waxay ka expect gareynayeen ay filahayeen shacabku rajeynayeen inuu helo iyo sida loola dhaqmay taas urur dadkii shacabka ahaa waxay ku kaliftay dadkii inay iyagu danahooda u soo istaagaan oo ay iyagu rabaan inay wixii ka maqan ay dhacsadaan taageero marka aan taageerada shacabkanaga iyo dadkanaga aan ahayn ma haysano waxa aan xuquuqdooda raadinaynana waa dadkanaga marka waxaanu haysanaa taageero shacab waxaanu haysanaa taageerada dadka ay khusayso arrintani noocay doontaba ha ahaatee dal iyo dibadba waa arrin uu shacabku uu u baahan yahay naguna taageersan yahay naguna garab taagan yahay sideen ku ogaan karnaa shacabku in idin taageersan yihiin waad ogaan kartaa warbaahinta kameena arkin weli waxaan malaynayaa inaad haddaynan adiga baarsu idiin imaanin gaar ahaan idaacaddiini iyo wixiina bulshada Soomaaliyeed adduunka ama ummadda dadka adduunka ku nool maanta waxba kama qarsoona wax walba meediya hay socdaan waad ogtahay dhibaatooyinka ka jira waxay qorayaan baad ogtahay cabashooyinkooda la ogyahay dhibkooda la arkayaa marka taayada cadeynteedu haddaadan horey u ogeyn haddaad ogaani haddaad horey u ogeyn dee waad ogtahay marka wax qarsoon ma waxay shacabku la taagan yihiin ay sheegayaan dhibkooda waxay doonayaan ay sheegayaan wixii ku dhacay ay kaga cabanayaan wax heerkan soo gaartay ilaa ay maanta dagaalamaan marka waad ogaan doontaan insha Allah haddii Ilaahay hogaamiyaha ururka waa kuma hogaamiyaha ururku waa Colonel Ciid hagu ku nool yahay gudaha Itoobiya ku nool yahay gudaha deegaanka jooga gudaha deegaanka ma hubeysan yahay ma hubeysan yahay dagaalku ku jira hadda ku jira waa tahay haddaba waxaad moodaa in urur cusub oo xorriyad doon ah oo hadda ONLF bedeli raba meed soo aragtaan maadaama ururka ONLF ay hubka soo wareejiyeen macnaha nabadgelyo ay qaateen oo doonayaan si silmi ah inay xuquuqda deegaanka ku raadiyaan sida ay noo sheegeen runtii horta ONLF waa urur muddo badan soo halgamay guud ahaan Ethiopia waxa ay deegaanka Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed u ogoshahayna waa wixii iyaga laga dhaxlo iyaga dhaxalkooda weey horta taas wixeen ma jirto marka hadda ONLF 100% fully hubkii tay wareejisay ogolaatay nabadgelyo inay wax ku raadiso waxaan ognahay ONLF qayb hadda joogta qayb wali maqan qayb wali aaminsan fikirkii qoriga ayna laga waantoomin qaybtan hadda gudaha gashay wanaagii iyo wixii ay ku socdeen hadda Ethiopia ay hadda wax ka sugaanba meesha ma taalo marka iyaga laftirkooda waxaan dhihi lahaa ONLF
chance baa iyaga laftirkooda maanta u bannaan maanta maalin ay ka liidato Ethiopia ma jirto halgankoodii ha israaciyaan inta ka dhiman aniga su-aashaadii weydiisay hadday tahay anaga ONLF ma bedelayno ONLF WSLF dhammaan kuwa hadda jooga dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxay wada raadinayaan xurriyadooda iyo xaqa ay leeyihiin iyo madax banaanidooda ay dhammaan wada raadinayaan annaguna waxaanu ka mid nahay dadka xuquuqda deegaanka raadinaya dadkani marka waa isku wada mid halgankana inta wax khaldan yihiin wuu soconi oo inta ay wax khaldamahayaan mar walba qof khaladka diidaya banaanku imaanaya marka annagu waxaanu nahay urur ONLF bedelahaya manhiina urur hadda jooga oo soo baxay oo xuquuqda dalka raadinaya oo shacabka iyo ummadda deegaanka dhibka loo haystay iyo nidaamkan keligii taliska ah ee ku habsaday inaanu ka dulqaaday go'aansaday kaasaanu annagu nahay mahadsantahay okay aad baad u mahadsantahay daawadayaal halkaad nagala socotaan waa Somali TV Minneapolis si toos idinkaga imanaya waxaana la jooga Asad Xirsi Cabdullaahi oo ah sarkaalka arrimaha dibadda ee Somali People Liberation Front oo nala wadaagaya xog cusub oo ku saabsan urur xorriyadoon ama go'aanimo ah oo hubeysan oo ay ka aaseen gudaha dalka Ethiopia oo ay doonayaan sida ay noo sheegeen in xuquuq ugu raadiyaan dadka Soomaaliyeed waxaad uga qayb qaadan kartaan khadka telefoonka shaashada idin saaran mar walba aad doonaysaan inaad comment ka bixisaan ama su'aal haddii aad u qabtaan waxaynu ognahay maamulka hadda Ethiopia haddaynu kor ugu laabano federaalka hadda abiyey waxaad moodaa qolihii ugu xooga badnaa ugu cududa badnaa ee Ethiopia maamuli jiray 22 sano iyaga taa inuu maaragtay muddo kooban kaga adkaaday inkastoo hadda dib rogaclaan ay ka soo sameeyeen markii caalamka ay intervention ku soo sameeyeen laakiin systemkii Ethiopia inuu wali is haystaad moodaa marka mas'aladahay idinku dadka Soomaaliyeed lugooyo umad ku wadaan maadaama sidii kuwii hore oo kale oo inta soo dagaalamay ay soo tijaabiyeen waxba u hirgali waayay idinku sidoo ku hirgalaysaa maxaa kuwii hore ka bedelan oo la imanaysaan horta dadka deegaanka ummadda Soomaaliyeed lugooyo kuma wadno waxaanu rabnaa dhibaatada haysata inaanu ka dulqaadno abiye nimankan ay aad hadda ka dhawaajisay horta dagaalku waa meeshii ugu dambeysay weeyaan saan ku sheegaba dagaalka ka socda Ethiopia wuxuu ka bilowday deegaanka Soomaalida taawaynu isla ognahay iyadoo waqtigii uu dhibkaasi dhacay waynu isla ognahay saan ku sheegay bilowgii hoostigeennana dagaalkaas Soomaalida markii laga gudbay waxa loo gudbay dagaalka shucuubaha waxa ku xigay dagaalka Benishanguulka waxa ku xigay dagaalkii Gambeelaha waxa ku xigay deegaankii Oromada waxa ku xigay dagaalkii hubaysnaa ee ururka OLF ee Oromada ee uu ku qaaday aynu wada arkaynay cir iyo dhulba ahaa waxa soo dhani markuu soo burburiyay wuxuu dib ugu soo noqday oo dib ugu soo jeestay ururkii isagu ka mid ka ahaa iyo nimanka aqoon-yahanada ahaa isaga keenay meesha ku soo fadhiisiyay sidaan ku magac dhabay markii dhaweeto lama magarso oo kale Jawhar Maxamed oo kale adigu ragii isaga keenay meesha halkaas markuu marahaya ayuu dib wuxuu ugu soo noqday in uu weerar ku qaado Tigreega dagaalkaas oo ugu magac daray sareynta sharciga runtiina kama uusan guuleysanin dagaalkaas iyagu markii waqtiga ay ka baxayeen iyo soo celintii ay ku soo noqonayeen gacantooda ku soo noqonayeen waxay dalka u diideen sidii deegaanka Soomaalida uu nidaamkii jiray u diiday gudaheeda inuu dagaal ka dhaco ee ay isu dhiibeen amal ay kuwana waxay uga baxeen magaalooyinkoodii inaan lagu dhex dagaalamin mana uusan ka guuleysanin hadda waxaynu ognahay inay dhammaan deegaankoodii soo qabsadeen goboladii Amxaarada soo qabsadeen oo Canfartii soo qabsadeen macnaha jidkii isku xiri jiray Djibouti iyo Ethiopia soo qabteen kii Suudaan iyo wixii oo dhan ay isku qabteen marka ma aynu guuleysanin wuu gool daraystay oo runtii waxa guuleystay oo maanta guul jooga TDF annaguna waxaanu rabnaa in aanu ka mid noqono halganka humaysan ee Ethiopia ka socda ee ay nimankaasi garabka ka yihiin OLF ay ka mid ka tahay ayaanu rabnaa annaguna inaanu itoonu ka mid noqono aanu ku biro oo aanu si wada jira u dhaafino nidaamkan fashistiga ah iyo soo nooleynta dargiga nidaamkan dargiga ee keligii taliska inaanu meesha dhaafino oo aanu ka dulqaadno deegaanka marka deegaanka Soomaalida waxaanu u haynaa oo aanu u wadnaa waxa weeye inay helaan xuquuqdoodii iyo xorriyadoodii isna dhaafiyaan annana aanu dhaafino oo aanu u soo istaagno nafya maalba aanu u horro sidaanu ku dhaafin lahayn keligii taliskan fashistiga okay deegaanadeed ka howlgashaan
dhammaan deegaanka Soomaalida qaar ma magacdhabi kartaa oo ma aragtay daawadaasha qaarkood baan soo weydiinaya aad iyo aad yihiin deegaanada qaar ay ka howlgalaan oo ciidamadooda ay joogaan bal noo sheegeen waxaanu ka howlgalnaa deegaanka Qorraxay waxaan ka howlgalnaa deegaanka Doolo waxaanu ka howlgalnaa deegaanka Faafan waxaanu ka howlgalnaa deegaanka Shabeelle soo deegaan dhammaan deegaamada oo dhanba macnaha wax naga maqan buu yaryihiin okay su-aashii hore aan ku weydiiyey haddaan dib kugu celiyo inaad ka booddaa u malaynaa ama aad dib u fahmin istaraatiijiyadda ka duwan anagoo ognahay weliba hadda xaaladda geeska Afrika inay si ahaanba u shiiqday oo Eritrea oo badanaa sabab taageero dhaqaale iyo mid walba laga heli jiray hadda Abiy Ahmed ee heshiisyan ama dowladda Ethiopia hadda maamulka hadda jira isku fiican yihiin Djibouti sidoo kale ay tahay Soomaaliya iyo taadiib u taag daran tahay marka nidaamka ka duwan kuwii hore aynan marin ka duwan oo xornimo degdeg ah ku keeni kartaan bal inoo jalci waxoogo nidaamku waxa weeye wadankii hore markii hore waxaa jiray dawlad xoog badan oo Ethiopia la yiraahdo oo isku xiran oo dhammaan qoomiyadaha iyo ciidamadooda iyo nidaamkooda uu kamid yahay uu gacanta lagu wada hayo wax la wada leeyahay wixii marka ururaha dagaalamahay laga mideysnaa ka hortagiisa maanta waxaan ognahay oo aan ku sheegay dagaalku meesha Ethiopia ka socdo waqooyiga Ethiopia oo dhan way holcaysaa gobolka Tigray oo dhan gacanta wuxuu ugu jiraa TDF TDF waxay gacanta ku haysaa wadan qaybo badan oo kamid ah deegaanka Amxaarada waxay gacanta ku haysaa deegaanka Tigrayga waxaan ognahay waxa go'doon ku jirta caasimadda labaad ahna caasimadda gobolka Walle ee Amxaarada Dese waxa kaga duwani waxa weeye nidaamkii hore bulshadu naruuri bay ku haysatay oo nidaam ay wada leeyihiin buu ahaa nidaamkana waa nidaam ay ka soo wada horjeedaan dhamaan waxaan ku sheegay deegaanka Soomaalida waxaan ku sheegay deegaanka Benishanguulka waxaan ku sheegay Anfarta waxaan ku sheegay Oromadii waxaan ognahay oo isla qiraynaa holca ka socdeed adiguba hadda aad xaqiijinayso nidaamka degdeg ah marka waxa keenaya waxaan hadii aan la iska garabsanin tan ay keenaysa awoodan dagaalamaysa ayaa waxay noqonaysaa marka awooduhu isgarab istaagaan waxaan in durba la isdhaafiyo okay daawada ayaa wuxuu su'aal weydiinayaa dagaalka intaan la galin ka hor wuxuuna macnaha tilmaamayaa in dagaalo badan oo deegaanka galay aan dadka deegaanka lagala tashan marka yaad la tashateen dagaal ka hor waxa jira la tashi iyo dadka inay isku raacaan inay dagaalamaan yaad kala tashateen dagaalkan inaad gashaan horta waa su'aal aad muhiim u ah markii hawl la sameynayo hawsha dadka meesha jooga ayaa waajibkeedu saaran yahay dhibaatadu ay haysato hawshan anaga ka wada tashanay shacabkaanu kala tashanay cuqaashi iyo waxgaradkaanu kala tashanay aqoon-yahanada deegaankaanu kala tashanay dadka leh jecladu dalka ka hayso ayaanu kala tashanay dadka dalka leh ayaanu kala tashanay taas marka ummadani waa ummad 8 milyan iyo ka badan ah 8 milyan iyo ka badan macnaha qof waliba aniga ima soo gaari karo adigana kuma soo gaari karo muwaadinkaas su'aasha inuu soo weydiiyeyna ma gaari karo laakiin muwaadinkaasi wuxuu mas'uul ka yahay in badan oo isaga gaari karta wuxuu awoodaa oo uu xaq u leeyahay in uu matalo oo uu ka dhiidiyo ama bogaadiyo dhibaatada isaga dadka inta ku xeeran isaga haysata ayuu matalaa anaguna waxaanu matalaa dadka deegaanka aqoon-yahanada iyo cuqaashu waxay matalaan dadka ay u yihiin cuqaasha waxgaradku wuxuu matalaa deegaanka uu ku dhex nool yahay waxgarashadiisu marka dadka deegaanka ayaanu kala tashanay ummadana waa isku wada dan ee ummadu kala dan ma aha maanta dal wax dan uguma jirto in lagu soo celiyo nidaam dictatorship ah oo keligii talis ah deegaanka in lagu soo celiyo wax isagana dan uguma jirto anigana dan uguma jirto dadka shacabkana dan uguma jirto tusaale waxaa noogu filan saddexdii sano iyo intii dheeraadka 2018 laga soo bilaabay ilaa hadda dhibaatada dadka gaadhay baa tusaale noogu filan okay waxaa tiri nidaam keligii talis ah in deegaanka lagu soo celiyo dan uguma jirto saas ma naam weligii nidaaman keligii talis ahayn ma ka taliya wadanka intii hadda u dambeysay ha keligii talis ma ahayn oo yaa kamid ah wuxuu ahaa nidaam dimuqraadi ah oo nidaamkii ay 1994kii ururka ONLF uu aqlabiyadda buuxa codka uu ku helay ku magac bixiyey caasimadaha ku sameeyey deegaanka maamulka loogu sameeyey ayaa kamid ah madaxdiisa soo bedelaysay ee uu ugu dambeeyay Cabdi Maxamuud Cumar nidaamkii ku imaanayeen baa kamid ah shacabka dooranaya mise Addis Ababa loo soo magacaabay maya waxa Addis Ababa lagu soo magacaabay mission Addis Ababa hadii lagu soo magacaabayo dadkani isma badbedeleen
maynan isbedbedelin madaxweyne ma bedelin cabdirashiid duulane khadar macalin cali ma bedelin khadar macalin cali ma bedelin riyaale xamid daa'uud ma bedeleen cabdulaahi lugbuur ma bedeleen cabdi maxamed cumar ma bedeleen nidaam xisbi ah oo baarlamaan ah oo sharci ah oo ay dadku dooranayaan oo xaggana xisbi ku matala federaalka ummadda soomaaliyeeda xaggana ah xisbi ku matala ummadda soomaaliyeed deegaankooda ah ayuu ahaa tusaalaan ku siinahayaa meeshan waxba la iska barbardhigi karin baan kuu sheegaya doorasha hadda la yidhi waa laga qabanaya deegaanka soomaalida intii hadda maamulkani jiray intii dib u dhacdhacaysay oo dhan iga daa doorashada maanta deegaanka laga qabanayo xubnaha ka sharaxan deegaanka kama ay sharaxna degmooyinkeedii ma fahantay hadal pointiga su-aasheeda nidaamka dictatornimadu dhibkay leedahay kuu sheegaya doorashada hadda deegaanka soomaalida ee hadda maanta taagan dad baa la dooranayaa soo maa xisbiga b barwaaqa ah xisbiyadii kale way mahadha ka gaadheen si fiican bay sameeyeen meel wax ay kala tartamaan ma joogaan go-aankii ugu fiicnaana way qaataan waan ku bogaadinaynaa arrinta iyada b markaa dib ugu noqoto musharaxiintooda ilan deegaankii dadku waa la yaqaanaa madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka sidhiga ka maamulka jigjiga waxaas o dhan waa la yaqaanaa musharaxiinta hadda sharaxani kama sharaxna degmooyinkoodii jigjigaa lagaga soo qoraya tana marka dictatorku dhibkaasuu leeyahay marka nidaamkii hore marka wuu ahaa nidaam xisbi ah oo dadku leeyihiin oo dadku dooranaya 100% sidii la rabayeen u dhicin afrika oo dhan bayna ka dhicin taas wax xiriir ah idinkala dhexeeya ururada kale ee ka soo horjeeda abc TPLF oo kale xiriir weyn baa naga dhexeeya sida TDF ururka TDF ururka OLF iyo anagoo SPLF ah xiriir weyn baa naga dhexeeya waana go'aansanay inaanu ka garab dagaalano waxaana si wada jira aanu isu dhaafino dibna aanu wada jir ugu soo wada celino Ethiopia la wada leeyahay oo federal system ku shaqeynaysa oo dalkii dadkaba ka dhaxaysa TPLF xiriir ma leedin TDF xiriir baan leenahay TPLF Tigray People Liberation Front ma jiraan hadda TPLF wax ku dagaalamaya TDF baa la dhahaa TDF baa la dhahaa ana ku saxay way bedesheen okay Tigray Defensive Force Tigray Defensive Force weeye waxa hadda ujeedkii dagaalkiisu yahay way wada xiriirtaa OLF iyo anaga inaanu iska garab dagaalano kuna midowno dagaalka lagu dhaafinayo abiya meesha iyada taas waanu ka simannahay okay all right marka fariintaada aad doonaysid inaad dadka la wadaagtid maanta ugu muhiimsan thank you mid fariinteeda ugu muhiimsan midan weeye waan sugi lahaa intii hore oo dhan shacabka deegaanka Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aqoon-yahankooda waxgaradkooda dhammaan waxaanu leenahay waad ku mahadsantihiin inta horta naga mid ka ah garab taagan taageeraha buuxa heli hoo ahba nala garab taagan fariinta aan u gudbinayo waxa weeye shacabka deegaanka Soomaaliyeed dalkan idinka leh dalkan waa dadkiina xuquuqdiinana cid xoog kuma haysan karto waxaan idinka codsanaynaa oo aan idin soo gudbinaynaa inaad soo istaagtaan xaqiina raadsataan diidaanna macnaha nidaamkan dhergiga ah inuu dib idinku soo noqdo keligii talisnimada ah ee fashistiga ah inuu dib idinku soo noqdo inaad diidaan inaad u guntataan dalkan idinka leh codkana idinka leh lahaanshaha dalkuna waa idinka awooduna waa idinka waxa aad diidaanna cid idinkuma qasbi karto waxaan marka fariinta aan soo gudbinayo waxa weeye iska dulqaada dulligan na soo raaca na soo garab istaaga noo imaada aynu isku si wada jir gacmo wada jir wax ku gooyaan aynu isku dhaafino nidaamkan dictatorka ah ee kaligitaliska ah wad mahadsantiin aad baad mahadsantahay asad mahadsantahay insha Allah daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Asad Xirsi Cabdullaahi oo ah mas'uulka arrimaha dibadda ee xisbiga xorriyad gobonimo doonka dowladda deegaanka Soomaalida ama SPLF Somali People Liberation Front oo qaabilsan arrimaha dibadda oo nooga waramayay ururkaasi sababaha loo aas-aasay iyo waxa uu taagan yahay iyo waliba xaaladihii ugu dambeeyay dalka Ethiopia intaynu barnaamijkan mid la mid ah dib hooda u kulmi doono waa anigoo ah Cabdirasaaq Sheekh Mursal iyo tiimka farsamada oo hogaaminayo siyaasi Ciise Saalax oo idinla sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh